هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم. هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء. قصة أقول عضي إمام أحمد بن حنبل هذا عضي نك عالم كأه ومذهب كأن حنابلة نك إمام كأه أحمد بن حنبل أفرت مذهب متك مدوي شيخ خاص نين عانوي والله يقانو عالم بوها وعلماء هري مذهب كاس محمد مذهب كحنابلة معناها نك كو أبتر سنة يومي بقى سيدا أنك الصومالي الشافعي أنا أقوى أبتر سنة يا مذهب كحنابلة ده شيخ أحمد بن حنبل بيكو أبتر سنة ومعناه هو حوي مذهب كي كسو جيدان شيخ خاص وعلماء هروي وحاد عدي واجو هري إلين تلفونادان iyo TV-dan iyo oo nin walba halka laga daawanayo asoo ku imaanin ma jirin sheekhi marka warkiisa meel kasta gaaray dad badan oo kamid ah waa la maqlay laakiin ma aysan arkin TV iyo waxa ma jirin marka maadaama sheekha warkiisa uu baahay oo meel badan uu gaaray sheekhi marka magaaladii uu joogo ka tagay safar dheer buu galay متهدو سي لغينيه قبل كامل دحه ugu dhacay gabalka markuu sii dhacay meel tuula ah yuu tagay meel tuula ah yuu fiiriye masaajid buu ku arkay masaajid ratuula ku dhaxyaa lagu aaday masaajidkii uu ku tukaday xilligii cishihii markii la gaaray oo uu tukaday sheekha waxaan yidis ku jirtay meel kale uu yaqaan ma laha waa nin marti way inuu isa sheego ma rabo hadduu dhahaanay Axmed ibn Hanbal baan ahay wala karaameeni laakiin ma doonayo magaciisa wixii asaga u khaaska ama shakhsiyadiisa inuu magaciisa uu ku adeegto ma rabo uu isqariyo marka wuxuu sameeyay markii uu magaalada tagay masaajidku isaga tukaday oo nidiisa waxa gashay meel kale seexan ma lahe masaajidka iska seexo masaajidka iska seexo ashii markii la tukaday masaajidka loo masaajid waardiye joogo lama seexdaba رديس يدرشيد ولا حير مركز الشيخ مركي كريس ku soo haray wardiye wixii soo baxay ma inuu wixii inta iska seexan igada meel kale oo seexan martii aan ahay meel aan seexdo kala malay halkan aan seexanay iska keeyda ma meesha lama seexdo waa wardiye dad waxa iska jiraan macaankiisa mud ma meesha lama seexdo sheekh صبح baan صبح sheekhi markuu ku adkeeyay uu iska baxay ninka albaabada xirtay sheekhi wuxuu sameeyay albaabka uu iska fariistay meesha albaabka banaanka iyo ku yirtan giigsaday soo meesha isla meel kale malay masaajidka hadii laga xirtaba bal masaajidka oo iradi buu xogaasho yuur saxday wardihi uu iska tagay dhow dambe wardihi wuxuu soo laabtay wuxuu arkay sheekhi oo wali meesha albaabki jiifo oo xogaa yar saxday وبحنا قورديه ونكان مسايد مرة كتب مدينه ولد بوده الشيخ وقبته وجيده يريد مسايد كفه ومقولينه وجيده إلى وحليل وضوء شو مسايد مال وضوء كيا ليه إلى وضوء وجيده مركو جيده يي ويد لا يرى أركي مرك تبينك اسمه ما من لا يرى أركي شيخ دبك الله دبك لو جيسنا يوم قالنا مرتكوا أو وش من كي مسايد كوديده يوم مسايد كلو دي دنيا هاي فيري هو أركي كان على مد دينه كم وقته إن كان أهل الدين أو آثار دينه راد دينه وكم وقته إنه يحبوا أركي نكاح في الشيخ نكاح أنا مالكو جيدي ويل كان لنا يرد أيوة ذا يو وعكاش قيستا روتي ومقالة معنا تولده روتي عايز استعماشه يودوا بقى وهذا كانوا كشقيا وهو ذا ويل كي ماشي وحكوها بيسانية ومال جوجل ولا كشق ولا نسكت سحر نسكت سحر ده ما لا هالكان نسكت مثلا دير جودي دي هالكان نسكت سحر ويل كمان كشقي سوسك وتعسك روتي يسي يوحي بمكان يودوا بيا ويل كوحو سمينا مركا شيخنا وفيرنا يا ويل كان ويلك wuxuu sameeyay markasta uu xabad rooti u duwayba astaghfirullah way ka socotaa baash afkiisa wiilka waxa ka muuqda istighfar astaghfirullah baashana wada sheekh yabay ka dhan wiilkan show uu fiirnaya baasha aan wada istighfar ku soo tooso istighfarta aan wada shaqadiisana u wada waagi markuu bariyay yaa la shakeystay
sheekh axmed ibn xambal wuu og yahay istikfaartan inay faa'iido badan ku jirto faa'iido fara badan inay ku jirto wuu og yahay asoo og wiilkuu weydiiyey bal inuu wixii faa'iido uu ka gaaray inuu waraysto nin wuxuu yidhi xal dhan waa istikfaarsanaysee istikfaartaadii maxaad faa'iido ka gaartay nin wuxuu yidhi istikfaartan faa'iidaan ku arkay wiilkii baa dhihi oo maxaa ku aragtay weligay wuxuu yidhi ilaahay wax ma weydiisanin ilaa uu iga ajiibaa istikfaartan baan haddaan wado wax alla wix ilaahu siiba aan dhoo ma waayiba waan horay baan ka helaa ilaa laakiin hal xabaa liiga ajiibin weli hal xaba hal duca yaan weli liiga ajiibin oo maxay tahay sheekh axmed ibn xambal inuu ilaahay i tuso taas baan weli liiga ajiibin waana sheekhan oo fadho wey so cajiib maaha weligay wuxuu yidhi ilaahay wax ma weydiisanin ilaa ilaahay haddaan weydiisto wuu isiyaa waan helaa istikfaartan aanan ku helaa laakiin hal xab aan weli liiga ajiibino waa sheekh axmed ibn xambal oo warkiisa in badan aan maqle inaan arko taa un baa ii dhiman buu yidhi oo weli ilahay iga ajiibin sheekhu wuu yaabay markaasuu yidhi ana axmed ibn xambal axmed ibn xambalkaad raadinaysaba waa kan ku warfo ya wuxuu yidhi niya waa lii kaa soo jiidaba istikfaartaadan aa wado darteedaaba meesha dhulka lii soo aadiyaba maadaama adi baasha halkan aad ka daldalaysay xaggaba waxaa ligaga soo wadaba inaan adig ku arko inaad ay aragto baa lii kaa soo kaxiyey waa cajiib marka istikfaarta hawsheeda wax yar ma aha faa'iidadeeda aad bay u fara badan tahay